adduunka waxaa jira dad madaxda u qaabilsan timaha labiska iyo wixii la mid ah madaxweynaha Soomaaliya ma leeyahay waxa la arkay madaxweynaha oo tintii ay ku baxday marka dad badan waxay isweydiinayaan madaxweynuhu meesha joogay miyaan timo jara aanay lahayn madaxweynuhu miyaanu lahayn dad tinta ka jara ama ka hagaajiya muuqaalka san maxaa yacni keenay arrinta marka maxaad uga jawaabaysaa madaxweynuhu inta uu joogay deegaanada dagaaladu ay ka socdaan hurdadiisa ka waran meeqa saac ayuu ugu yaraan seexdaa ama jiiftaa madaxweynaha jamhuuriyadda waxaa loo igmaday shaqo qaran oo adag oo madaxda adduunka la doorto aan la boqorin wadamada dimuqraadiga ah ku nool si lamid ah sida madaxweynaheena responsibility iyo mas'uuliyadaha saaran walwalka iyo stresska ka dhasha difference ku yimaada madaxweynaheena waxa uu si gaar ah uga duwan yahay madaxdaas kaleeto shaqada qaran iyo responsibilitieskaas iyo walwalkaas waxa uu dheer in uu furin dagaal uu joogay muddo 2 bilood ka badan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed dagaalka ay kula jiraan qawaarijta iyagoo kaashanaya shacabka Soomaaliyeed ayuu noloshooda kula noolaa deegaano galmudug iyo hirshabeelle ah ayuu safar dhulka ah cirka ah iyo caadi ahaanba u joogay intaas marka madaxweynaha shaqadiisa qaran iyo hawsha loo xil saaray mugga leh weynankeeda ayaa ka muuqda wax kale ma jiraan muuqaalka faafay waxaa la arkayay madaxweynaha oo tintii ay ku baxday marka dad badan waxay isweydiinayaan madaxweynuhu meesha joogay miyaan timo jara aanay lahayn madaxweynuhu miyaanu lahayn dad tinta ka jara ama ka hagaajiya muuqaalka san maxaa yacni keenay arrinta marka maxaad uga jawaabaysaa madaxweynaha waxyaabo badan uu heli karo uusan waayin ayuu ciidamada nolosha ay ku nool yihiin kula nool yahay oo la qaybsada madaxweynaha ma waayin cunto wanaagsan oo madaxda ay cunto ama boqorada cunaan ama tan ciidanka aan cunaan aan ahayn madaxweynaha teendooyinka ciidanka degan yihiin iyo goobaha uu la joogo meelo ka qurux badan oo ka qabow oo ka fiican oo seexan karay oo aan kaneecada iyo bahalada aysan joogin madaxweynaha marka waxyaabo badan oo uu heli karay asaga si uu tusaale ugu noqdo xaaladda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka u kacay difaaca shacbiga ay ku nool yihiin inuu kula noolaado goobaha ay joogaan uu la joogo ayuu door biday haddii aad tagtid furmaha dagaalka ama ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed meelaha ay joogaan waxyaabo badan oo magaalooyinka aan ka jirnaa ka jira marka madaxweynaha waxyaalo badan uu heli karo iyo waxyaabo badan oo loo heli karay dagaalka iyo halganka socda iyo ciidamada uu asaga u diraayo in ay howlgallada iyo ciidamadu hagaayo sida ay yihiin iyo xaaladda ay ku jiraan marka uu cuntada madaxweynaha ciidanka la cunaayo oo uu dirinta ay fadhiyaan iyo goobaha ay fadhiyaan cuntada kula cunaayo kama dhigna in madaxweynaha kursi qurux badan iyo miis qurux badan uu cunto ku cuno meel fariisto inuu waayo ay tusaale inuu u noqdo in dagaalkan dhab ka yahay dadka Soomaaliyeed ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeedna ay halkaas u jihaystaan oo dadka iyo dawladnimada horumarkeeda diidan oo ay qawaarijta ugu horayaan waddanka laga sifeeyo marka ujeedka guudaad sidaas ah madaxweynaha marka xaalad ka duwan tan tinta kaliya ma aha xaalado badan oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed saacado badan oo uu shaqeeyo uusan shaqeey jirin waxyaabo badan oo isbiirsaday oo jiray madaxweynaha oo ku siyaad ah 2 bilood oo soo dhaafay saacadahaasi aad soo hadal qaaday haddaan su'aal kaa weydiiyo madaxweynuhu inta uu joogay deegaanada dagaaladu ay ka socdaan hurdadiisa ka waran meeqa saac ayuu ugu yaraan seexdaa ama jiiftaa madaxweynaha horta caafimaad ahaan wax dhaqaatiirta iyo asagaba tala ahaan wax u xun caafimaadkiisa ah oo hurdadiisa ah oo liidata ma jiraan laakiin saacado ka badan saacadihii uu shaqeyn jiray markuu Muqdisho joogay ayuu halkaan markuu uu joogo shaqeeyaa uu soo jeeda waxaana keenaya howlgallada socda bareesharka jira mugga hawsha uu ku jiro iyo dagaalka socda ay leeyihiin waxyaalahaas isbiirsaday oo badan marka way jirtaa madaxweynaha saacadaha uu shaqeyn jiray inay korortay laakiin markuu uu Muqdisho joogaba madaxweynaha 2 saac xafiiska soo gali jiray habeenkii inuu 4 saac habeenimo ka baxaa dhici jirtay markii horeba dhowr 16 saacadood mararka qaarkood inuu shaqeeyo 18 saacadood mararka qaarkood inuu shaqeeyo xamar isugu joogay dhici jirtay waayahay
dadka qaar waxa ay leeyihiin madaxweynuhu wuxuu eg yahay qof xanuustay intii ama qof xanuunsaday intii uu joogay dhuusamareeb marka arrintaa maxaad uga jawaabaysaa oo aad dadkaasi u sheegaysaa madaxweynaha jamhuuriyadda deegaanada uu ka shaqeynaya ama howlgallada ay ka socdaan oo galmudug iyo hirshabeelle ah dhuusamareeb maxaas aadan yabaal iyo goobo kaleba maalmo iyo habeenno isagoo socda ayuu joogay kana howlgalayay isagoo da'daas jira marka madaxweynaha wax ku ziyaado ah xaaladiisii horeeto ma jiraane uun shaqada tirada badan iyo ciidamada uu noloshooda la qaybsanayo un ayaa ka muuqda waayahay dige in madaxtinimada lagu qorxoonaado laakiin madaxweynuhu isku bedelay maxaa loo qaadan karaa maxaa loo fasiran karaa madaxda ku qurxoonaata wadamada ay haystaan ay maamulaan ma wadamo qurxoonba ma aha badankood ama boqor ha ahaado ama dictator ha ahaado ama mid la doorta ha ahaadee madaxweynayaasha marka madaxda ku qurxoonaata xilka intay hayaan madax ka fikirta muhiimadaha iyo shaqooyinka loo diray maaha madax lafahooda ku mashquulshan waa marka laba adduunyo haddii lagu qiimeeyo su-aashaas laba jawaabood ay yeelanay ha madaxda qaarkood waa ku qurxoonaataa laakiin madaxdaas madax ka fikirtay wixii loo diray iyo shaqadii loo diray ka welwashay ma tahay waa su-aasha waayahay adduunka waxaa jira dad madaxda u qaabilsan timaha labiska iyo wixii la mid ah madaxweynaha soomaaliya ma leeyahay madaxweynaha soomaaliya ma laha shaqadiisa inta badan horta wixii personal iyo privacy ah waa gooni laakiin madaxweynaha wax meeka u mariyo waraysiyada mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in telefishinada markii banaanka adduunka la tago oo qof make up mariyo oo kaleeto wax noocaas joogaan in meelahaas uu iska diido waan kula kaftanaa jiray madaxweynayaasha adduunka iyo cid walba oo laga qaadayo waa sameeyaa marka ma laha madaxweyne xasan sheekh qof gaar ah oo shaqadaas qabta soomaaliyana ma aqaan inuu ka jiro madaxweyne soomaaliyeed inuu hore u lahaa